wiil ayaa waxa uu sheegay in hooyadii uu ku dhibaatooday isla markaasina ay mudan tahay amaba ay gaadhay xilligii uu geyn lahaa goobaha lagu xanaaneeyo dadka waaweyn. Wahagaag daawadayaal intaynan gaadhin faahfaahinta warbixintani page-ka Caydiruus Maxamed hadaad ka mid tahayna like sina share garee si muuqaalkani uu gaadho saaxiibo badan oo sida adiga oo kala ah. Wiil ayaa waxa uu sameeyay amaba uu sheegay inuu ku dhibaatooday hooyadii isla markaasina ay xilligani gaadhay inuu geeyo goobaha lagu xanaaneeyo dadka waaweyn isla markaasina waa uu qaaday waxa uu geeyay goobahaasi lagu xanaaneeyo. Hooyadii waxay ku jirtay muddo 7 sanadood goobtaasi dadka waaweyn lagu xanaaneeyo. Wiilkii muddo umu tagin amaba kamuusan wardoonin. Maalin dambe ayay hooyadii waxa ay ku tiri qoladii goobtii lagu xanaaneynayay mas'uuliyiinta ka ahaa igu yeedha wiilkaygii si aan fariin ugu diro. Wiilkii ayaa loogu yeedhay waana u yimid. Hooyo hee buu ku yiri waxay ku tiri hooyo qolkan aan ku jiro male mukayf amaba qaboojiye. saas aawadeed waxa loo baahan yahay inaad qolkani ku soo xidho qaboojiye sidoo kalena aad soo dhigto joodari amaba fresh. sababtoo ah dhinacayga markaan dhulka dhigo dhagaxa ayaa mudaa. wiilkii uu la yaabay oo wuxuu ku yiri muddo 7 sanadood aad hooyo ku jirtay waxaanad leedahay ilgeeriya maxaa keenay xilligan inaad 7 sanadood kadib aad maanta qaboojiye iyo fresh aad raadiso. waxay ku tiri hooyadii hooyo waxaan rabaa inaad meeshan aad ku soo xidho qaboojiyaha taasi bedelkeeda adiga ayaa lagu keeni doonaa oo aan ka naxaya wiilkaaga ay amaba gabadhaada ayaa ku keeni doonta laakiin waxaan isleeyahay adigu ku gubatay amaba dhulka marka aad seexanaysay dhagaxa ayaa mudi jiray laakiin siyuuna wiilkaaga aanu mudin. wiilkii waa uu yaabay isagoo foorara ayuuna goobtaasi ka dhaqaaqay. warbixintani waxayna la wadaagay wiil la yiraahdo Cabdirasaaq Maxamed oo bartiisa Facebook ku qoray. wahagaag daawadayaal maxaa kaaga baxay qisada amaba warbixintani nagula wadaag barta Facebook-ga ee Caydiruus Maxamed. hadaad ka mid tahayna muuqaalkani share garee si uu gaadho saaxiibo badan sida adiga oo kale.